والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta ay taariikhdu tahay 29 bishii toddobaad 2017 waxaan halkan doonayaa inaan ka hadlo laba qodob oo aad u muhiim ah oo waaqica dalka ka jira. Wada koobaad qodob waa qodobka diiwaangelinta madaniga ah iyo ka qaadashada wadanka ka socota sibahan labada gobol ee dalka ugu waaweyn, gobolka Muqdisho iyo gobolka Togdheer. waxaan halkan dadweynaha labada gobol ku dhaqan aan ugu boorinayaa oo baaq uga dirayaa in ay maxay qaataan kaarka oo ay si waafiya kaarka u qaataan. kaarku waa mustaqbalkiisii, waa mustaqbalkii uu ku dagaalamayay ee qofka uu jecel yahay iyo qofka uu neceb yahayba uu ku soo saarayay weeye. saadaradeed waxa muhiim ah in kaar qaadashada si fiican oo waafiya loo qaato, in qof walba kaarkiisa uu xafido, in qof waliba uu kaarkiisa gacanta ku haysto si uu magaranaysa hadhow toole ugu doorto qofkii uu doonayo. wali propaganda badan baa iska jiro oo maxay heeday in meelaha qaar kaarka la iibsanayo oo maxay heeday kaarkii ay noqdeenba waxda la iibsanayo. waxaan leeyahay qofka kaarkiisa iibiya oo qof aan dantiisa garanaynin ay barka maalin hadduu soo sharaxo ama qof maxay heeday baarlamaanka oo kale waxay noqonaysaa inuu qof walba qoonin iska soo xiriirka ogaayay. saadaradeed wuxuu hadhow ku doortay ma helayo. maanta hadduu kaarkiisa iibiyo kaarkaasi si ku daayay waxba wax maalin aad cuntay waxba kuu sheegi maayo. waxaan idin leeyahay kaarkiina haysta oo kaarkiina ku fara adayga. commissionkana baaq baan u diraya. waxaan leeyahay kulley dadku dad abaar ka soo baxay bay ahaayeen, dad kala guuray oo maxay heeday kala tegay baynu ahaayeen. wax weyn muddada aad qabateen aad bay ugu yartahay. waxaan leeyahay muddada loo kordhiyo dadka, muddada waxa lagu daro walow imka ay gabagaba tahay laakiin haddana tixgelin gaar dadka la siiyo. waxa weeyaan kaar fara badan ayaa yaalan, xogaal aan ku haynaa in kaar fara badan ay yaalaan oo in dad fara badan qaadan. boqolkiiba maxay heeday 50 oo kale lama qaadan, boqolkiiba 50 waa la qaatay. saadaradeed si aanay doorashadeenu u noqoto mid xor iyo xalaal ah oo maxay heeday dadkii ay wada codeeyaan oo si fiican oo bilaa turxaan loo kala baxo. waxaan leenahay annaga xisbiyeedaan in kaararka muddada dadka loo kordhiyo oo maxay heeday kaararka dadku ay si fiican u qaataan, kaararka waqtiga loo kordhiyo. taasi waa taa. waxaan kalaan doonayaa inaan qodobka labaad ka hadlo. waxaan doonayaa noqdo waxaad ogtihiin gobolka Sanaag degmada Darweyne in laba beelood oo walaalaa oo in badan soo wada deganaa oo in badan meesha ku wada dhaqnaa inay u dagaal iyo xurguf ka socdo. wallahi toona casnimo waxa la marayaa waqti aynu dagaal ka soo doognay oo aynu maxay ahayd dalkeena 25 sano aynu haysanay, dhibtiina soo gaadhay inay markhaati noo noqoto dhib nagu filnaato baahid oo maxay ahayd aynu dalkeena u tashano horumarkiisa u tashanay xilli la dagaalamo oo dagaal iyo qori in laga baxay baan moodinay. laakiin hadday soo noqoto oo kulli balaayadu maalinba meel bay maalinba maalinta ka maqantayna qayrka ku maqantay baa leeyahay. saadaradeed maanta hadday dagaal iyo waxaas nagu bilaawdeen in waxaan leenahay dawladdu ay ka howlgasho oo si waafiya wax ugu qabato. waxa weeyaan 5 sano ee madaxweynuhu joogay, dawladda Siiraan joogtay, dawladda kulmiye waxa weeyaan dagaaladaas way socdeen ama si dhiibli ah ku socdaan ama maxay hay'adey si kooxo ah ku socdaan. dagaaladaas weyn haysteen. waxa weeyaan dawladdu go'aan adag ka qaadato. waxaan leeyahay dawladda waxay hay'ad go'aan adag ka qaata, go'aankiinu jilcsanaanin, go'aan dawlad ka qaata. dadka walaalaha ay wada degan ee wasdhalay ee inan iyo abtigi ah waxaan leeyahay war dadka idinku ba isku dhow, idinka unba mar walba dadka iska xiga, waayo cid kale isma taqaana, idinku ma wada degan. waxa weeyaan walaalayaal dagaalkii naga joojiya, dhibta iska daaya, wixii turxaana ee meesha yimaadana si waafiya in loo kala baxo oo maxay heeday si niyada loo kala baxo oo magaranaysa wixii xurguf fadhidina yaalana si fiican u dhamaysataan ayaan aad idinku boorinayaa. haddii xagga Ilaahay la eegana labada qof ee maxay heeday muslimka ay isdila rasuulku wuxuu yiri fal qaatil wal maqtul fi naar, naartu migalayaan. labada qof ee isdila naartu migalayaan. saadaradeed xagga Ilaahayna wuxuu ku meeleysaan xag adduunyana was dhamaynaysaan. walaalayaal waxaan leenahay Ilaahay ka baqa,
dagaalkii naga joojiya nabadda wax walba inagu muhiimsan dalkeena inaanu dhisano ayaan doonaynaa oo in nabad ku soo dabaalno saa daraadeed waxaan idin leeyahay dagaalkii naga joojiya oo maxay ahayd nabadda iyo horumarka wada shaqeeya sida intaas u baan insha Allah kusoo koobi doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.